cabashadeenaas waxaan kaga hadalnay qaabka maxkamadda racfaanka xukunkeeda oo u dhignaa xukunkaas oo ah sumadiisa maragabajitin da'ala 27/2024 oo ba'ga ah iyo magaba baxa 16/2024 oo ku taariikhaysan 15 bishii shanaad 2024 xukunkaas maxkamadda racfaanka ka soo baxay waxaan ka qaadanay qodobka cabashadeena noo fasaxayo 232 faqradiisa labaad xarafkiisa ba oo uu tilmaamayo in si aanan ahayn sida qodobka uu tilmaamayo loo dabaqay ama dabaqaaduhu loo isticmaalay qodobka xukunka maxkamadda ay soo saartay culeysna ku ah eedeysanaha qodobkaas oo ah 434 xeerka ciqaabta 434 ee xeerka ciqaabta ah sababta aan uga soo qaadanay ee tabaqaadda aan isku macnaha isla keeni weyna annaga iyo maxkamadda racfaanka waxa ay tahay wuxuu leeyahay shuruudo iyo tiirar lagu gaari karo marka la rabo in qodobkaasi la dabaqo waxay ahayd bacdama aan joogno maxkamadda sare ee dalka ayna qasab tahay inaan soo baldhigno qaladaad ama gafaf ama ka tagis ama qatalid lagu sameeyey qodobada inaan soo baldhigno sidaas darteed marka mudane guddoomiye aasaas ahaan dacwada ciqaabta ah waxay ku bilaabataa ama ay ku istaagtaa marka procedure-ka laga hadlayo garmaqalada ama maxkamadaha dhexdooda qodobka 24aad ee xeerka habka ciqaabta kaasoo gungaarkiisana lagu soo gudbinayo qodobka 26aad ee xeerka habka ciqaabta waa baaraha shaqada uu qabanayo oo ay muhiim u tahay 24 iyo 26 in lagu dhiso dacwad kasta oo ciqaab ah ee la rabo in loo isticmaalo garsoorka ama maxkamadaha markaan fiirino ama maxkamaddu ay nala fiiriso anoo ogsoon inay aqrisay xukunka aan sumadiisa soo sheegnay maxkamaddu racfaanka ka soo baxay meel uu ka tilmaamayo ma laha in la dabaqay ama wax baaristii ku yimid ee laga dhex heli karo xukun ahaan ma laha sidoo kale ma jirin markii la gaaray buugga labaad ee xeerka habka ciqaabta okay 24 wuxuu tilmaamayaa baaraha inuu sameeyo baaristiisii haddii ay u muuqato marka inuu helay dambiyeedna wuxuu tilmaamayaa inuu soo gudbiyo baaristiisa oo gungaarkii ay wadato haddii uu waayo inay wax u soo baxaan inuu ka istaago waayo marka ma jirin xukunka wax lagu dhisay oo ka imaanayay baarista ama baaraha wax uu soo gudbiyo halkan lagu tilmaamayo ama laga arki kara malaha taasina waxay ahayd muhiimay u tahay sababtu waxa waaye waa aasaaska ugu horeeya ee laga rabo xukunka in laga helo midda xigtaa xafiiska xeer ilaalinta wuxuu soo gudbiyey eedda uu soo gudbiyo xafiiska xeer ilaalinta garmaqalka dacwadda markaan u fadhinay ma ayan jirin wax cadaymo ah oo xafiiska xeer ilaalinta uu usoo gudbiya maxkamaddu
go-aanna ay ku gaartay ma jirin wax caddaymo ah ee xafiiska xeer ilaalinta uu u soo baldhigay maxkamadda maxkamadduna ay go-aan ku gaartay ma jirin marka waxaan u socdaa inaanan la heli karin 434 xeerka ciqaabta garmaqalkii dacwadda ee racfaanka markaan u guda galnay waxaa la keenay marag gabar ah oo la yiraahdo Faadumo iyo waxaa la keenay dhaqaatiir gacanta ku haysay lul xilligii ay dhaawaca ahayd intuba marag furkooda ama waxyaabihii ay maxkamadda la hor imaadeen midkoodna ma sheegin in Siid Cali uu sababay ama uu mas'uul ka ahaa geerida marxuumad lul intaasi markii laga waayay soo baldhigidii ama sidii la rabay in lagu helo caddayntii oo ay tilmaameen siiba Faadumo ay tilmaamtay inay ahayd qof hadlaayay ayaduna ayan sheegin in dhibaato uu u geystay odaygeeda Siid Cali cid laga soo wariyayna aysan jirin meesha ayada ah waxaa muuqata in uusan jirin qodobka 434 in la gaaro oo tilmaamaya dil halkaa markay taagan tahay mudane guddoomiye min naaxiyada shareeca qodobkaas markii la rabo in la dabaqo ama qisaasta markii la aadayaba waa in la helaa qiraal ama shuhada haddii ayan marka intaasi ay jirin faqradan labaad oo ah in aanan loo dabaqin sidii la rabay qodobka asaga ah lama heli kara marka natiijada ah dilka waxaa jirtay ee aan asbaabta aan u soo qaadanay asbaabteena caawishada markii la fiiriyo xukunka waxaa asbaab looga dhigay qariinada waa malo waxaana lagu buuxiyaa markuu qiraal yimaado ama waxaa lagu kabaa marka ay maragi jirto oo ay caddaynayaan in faldambiyeed dila oo dhacay maragaasina ay sharti tahay min naaxiyada shareeca in ay yihiin laba qofood oo rag ah caadiliin ah qaangaar ah maskaxdana ka fiyo laakiin qariinada kaligeed ma sababi karto mana dhali karto dil xukun in lagu soo saaro markaan fiirino marka xukunkii maxkamadda oo laba u kala qaybsanaay ee aan cabashada ka soo qaadanay marka ugu horeyso asbaabta qariinada haddiiba la soo qaadanayo waxaa muhiim ahayd in la tilmaamo hadduu jiro nas ama aayadi hadday jirto oo loo soo qaadan karo in lagu dhiso xukun dil ah qariino taasi waxay ku tusaysaa marka in aysan jirin aayad quraan ah oo xukunkii maxkamadda racfaanka loo soo qaatay oo nisbaynayo mas'alada dhacday in ay keentay deyn mas'alada dhacday maxay tahay marka mas'alada dhacday waxay tahay qol la gubay ee aanan lahaynin ama la sheegi karin dhacdada inta aan u joogno oo ah in lul cabdilcasiis maxamed ay u geeriyootay dab
waxaa la rabaa marka in aan isweydiino ama maxkamaddu inay soo saartay ahayd dabka lul ay u geeriyootay in uu ahaa dab ka yimid guriga, macnaha si kale haddaan u dhigo meel gubanaysay qof gaaray oo dabka asaga ah uu waxyeelay. sababtu maxay tahay goobta ayada ah waxaa ku sugnaa oo keliya Siid Cali. Siid Calina ma tilmaamin mana sheegin in uu u geystay faldambiyeed dil ah ama asagu uu sababay. halkaa markay joogto waxay ahayd mudan gudoomiye garsoorayaal in maxkamaddu ay qiimeyn ku samayso goobta faldambiyeedka uu ka dhacay oo ah guri ayna ku koobnaan karaan ama laga heli karo waxyaabo fara badan oo waxyeelo qofka loogu geysan karo. taas waa midda la rabo in la soo qaatay ahayd laguna dhiso xukunka. markaan u gudbo marka mudan gudoomiye garsoorayaal qariinadu haddii la badiyo iyo haddii hal xaba laga dhigaba ma dhisayso kumana dhisna xeerka ciqaabta in lagu dabaqi karo ama loo soo qaadan karo. sababtu waa maxay? qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta wuxuu tilmaamayaa ee uu leeyahay wax aanan ahayn, macnaha waxaanan ku sugnayn xeerka ciqaabta lama dabaqi karo loomana isticmaali karo eedaysanaha. taas ujeedadeedu waxaa waaye in la dabaqayo oo keliya waxa xeerka ciqaabta uu tilmaamayo. xeerka ciqaabtana waxaa lagu gaarayaa procedure-ka. marka haddii procedure-ka mar la raaco xeerkii waa la gaarayaa. si kale haddaan u dhigo waxaa waaye haddii maxkamaddu ay isku dayi lahayd in ay la kaashato qabiir si waafaqsan qodobka 160 faqradiisa koowaad xeerka habka ciqaabta oo muxuu yahay qabiirka? qabiirkaas oo ah qabiir dhacdadan dhexdhexaad ka ah. wuxuu tilmaamayaa in maxkamaddu ay adeegsan karto sidoo kale haddii ay codsadaan dhinacyada ayaguna maxkamaddu ay ka ogolaanayso. waanu soo jeedinay in ay muhiim tahay in shareecada lala aado. qabiirka asaga ah ee aan tilmaamaynay wuxuu yahay culummada dalka Soomaaliya ama magaalo madaxdeena joogto mas'aladan oo kale markii ay timaado